cabdirashiid maxamed faarax oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanka reer Soomaaliland ayaa shir jiraayad oo ku qabtay magaalada Hargeysa ku shaaciyay inuu yahay murashax u taagan doorashada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee sanadka 2019 lagu wado inay ka qabsanto Soomaaliland. waxaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharafta iyo karaamada mudan aan u sheegayaa aan u bayaaminayaa guddiga dibadba inaan ahay aanan isku soo taagayo murashax xubin golaha deegaanka caasimadda Hargeysa haddii Allah awood leh oo yiraahdo anigoo horena qaranka dalka iyo dadka u shaqeynayay waxaan maanta go'aansaday cilmi waxaan leeyahay iyo cududba inaan maanta dadkayga iyo dadkayga ugu shaqeeyo haddii Allah awood leh yiraahdo waxaan doonayaa inaan wax ka qabto oo maxay ahayd wixii karaankayga ee Ilaahay la garab galo aan horumariyo adeegyada asaasiga ama baahiyaha asaasiga ay ka mid ka yihiin waxbarashada caafimaadka biyaha sidoo kalena waxaan doonayaa haddii Allah awood la yiraahdo inaan horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha ay ka mid yihiin jidadka korontada iyo tamarta haddii Allah awood la idmo maanta markaa bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa haddii maaragtay aad aragtaan inaan maanta aan maxay ahayd jagada aan buuxin karo oo maxay ahayd horena aan uga soo qabtay xilal dawladda in aad maxay ahayd wixii taageera aad ila garab istaagtaan waxaan leeyahay oo aan leeyahay bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ninkii timir abuuriyo ninkii tiin talaalaba taariikhdu way warin